abarasab ku-xigeenka gobolka Saraar Ibraahim Jaamac Maxamed maayirka degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf iyo xubno kamid ah gudida abaaraha ee gobolka Saraar ayaa soo kormeeray dadka abaaruhu saameeyeen ee ku kala daadsan guud ahaan deegaamo ka tirsan gobolka Saraar iyadoona ay dadka faraha maran kala jooga xoolahoodii u qaybinayeen cuntooyin fudfudud sidoo kalena barasab ku-xigeenka maayirka iyo gudida abaaruhuba waxay si wada jira qadar lacag ah u guddoonsiiyeen oday waayeel ah oo waayadanba xanuun la kici waayay isaga iyo qoyskiisuba geesta kalena dhammaanba dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaamo ka tirsan gobolka Saraar ayaa si wada jira uga cabanayay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda caafimaadka waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaanu aad uga cabanaynaa wasaaradda la yiraahdo caafimaadka xanaanada xoolaha wasaaraddan Soomaaliland way u diiwaan gashatay haddaan reer miyiga maanu aragno waa naga dacwo waa naga rabud deegaanka gabagabeyn oo aanu maanta halkan ku marayno kormeer 6 saakaanu baxnay imikana 3 galabnimo weeye salaadii duhur maanu tukan meel kale maanu isma taagin biyo ma cabin waxaan u soconaynaa dadka inaan xog ogaal noqono oo maalinba jaw baxno oo maanta jaadaan u baxnay fara yar aanu ku arkayno dad aad abaartu saameysay si qeyral caadi u saameysay dadkanu waxay u baahan yihiin arrintan xaalad biyo iyo way dhaaftay cunto degdeg u baahan yihiin dadka maanta aanu dhex marayno meeshii aanu aragnaba waa meeshii kale ka daran tahay safarkii de kulli hadeer maalin walba waxa aanu aad uga mahadcelinaya horta qolada warbaahinta waa qolada ugu xilligan abaaraha de qayb lixaad bay ka qaadatay iyo kamaroo la gudida abaaraha nin walba meesha loo safray loo baxo waxaad moodaa meesha maalinta meelaad u baxdid maalinta ka dambaysa in halka dambe u daran tahay annagu waxaan u soconaa kormeer inaanu gobolka iyo degmadaba dhammaantood aanan habeen iyo maalin fadhiisan halkan waxa ka aragtaan reer ay dadka abaartu naafaysay kamid ah siday aan ku hayno dadka waaweyn dariska aan ku hayno warbixinta ku hayno islaantii waa waalatay oo waxa lagu hayaa dhakhtarka dhimirka ee Burco odayguna waa xanuunsanaya laftiisa waa serious oo kala la sii qabadsiiyay marka halkan waxa ku harsan 4 caruur iyo aan isdhaaminayo mid yar roon xoolahana sayid sheegsan xoolodii waxa ka haray 45 neef awr male oo dameer male oo waxay rartaan male safarkayga wuxuu ku daaran yahay urgalka xaaladaha dadka abaaruhu saameeyeen bariga gobolka Saraar maayirkii degmada Caynaba barasab ku-xigeenka gobolka xubno kamid ah gudida abaaraha gudoomiye gudida abaaraha iyo anagoo ah xubno kamid ah gudida abaaraha gobolka wad aragtaan qoyska halkan yaala iyo qoysaska hore aanu soo aragnay waxay u baahan yihiin caawimada dadka walaalahooda wax haysta ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu wahabka iyo kuleylka iyo kurbadka iyo warwarka haystaba ka dulqaado walaalayaal soo caawiya meel ay seexdaan ma hayaan waa homeless guriyo ma haystaan hala soo caawiya baan leenahay وعبد الرحمن فيصل فمن التلفزيون العالمي له بلوشة TV مقالة عينة بحرونتو قبل كسرار